Somali dulaysan jiray way qabiilka ku doodi jiray way Somali dulaysan jiray way qabiilka ku doodi jiray bismillah alxamdulillah ilaaha maadle waxa war Soomaaliya waxaan doonayaa inaan ka hadlo arrimaha Soomaaliya ku saabsan tusaale ahaan laba qodob adiga inaan ku soo koobo waa clip yar oo doonayo inaan ku gudbiyo fikirkayga inaan ku gudbiyo ujeedkayguna ma ahan inaan ku doonahay laakiin aan ahay qof xal doon ah oo ummadda Soomaaliyeed inay midowdo jecel inay horumarto jecel Soomaaliya nabada Soomaaliya heshiisa Soomaaliya aan dhibaato ka jirin lagu noolaan karo oo hagaagsan mustaqbalkeena inaan caruurteena aan u horseedno oo aniguna maanta aan kamid ahay dadka nool oo taagan oo doonaya caruurtiisa inay ku noolaadaan mustaqbalka sharaf iyo wanaag warqadaas cad waxa ujeedada aan sawirka uga qaadayo waxay tahay Soomaaliya waxay u baahan tahay warqad cad oo nadiif ah oo wax hore ku qoray macamul jeedaa waxyaabo dan oo qof shakhsi ama koox wadato aan ku qorayn inay u baahan tahay Soomaaliya warqad cad inay wax ku wada qorato ku heshiido wax isku darsato oo bilow ah tusaalaha maanta Soomaaliland waxay leedahay anagu waa go'nay xorriyadan Soomaaliya aan qaadanayaan aan Soomaali weyn ula tagno ku biirinay waan ku qasaarnay meelo badan hadii laga fiirsho waxa la dhigi karaa waa sax way ku saxsan yihiin sababtoo ah ilaa iyo maanta ma aan hayno wax maaragtay dadkaas aan dhahi karno qofka aqliga saliimka leh oo dhihi karo maanta Somaliland guushaas ay ka hayda gobonnimadii aan ahayn madax banaanida ay haystaan aan ahayn oo la sheegi karo la taaban karo malaha marka waxa loo baahan yahay bulsho markay meel isugu tagaan in wax isku darsato si heshiis ay isugu darsato ku wada noolaato qodobadaas ay ku heshiiyaan ay wada ilaalshaan oo qof walba uu qabto laakiin aniga wax qasaaya aniga wax wadaaya saan raba wax wadaya ma shaqeynayso midda maanta Soomaaliya kala geysay way marka waxaan u baahanahay inaan warqad cad ku heshiino hadda waxaan dhihi lahaa ha laga bilaabo shirka Galmudug ka dhacaya caasimadda Dhuusamareeb ka dhacaya loo balansan yahay loo suumaad wajigiisa labaad oo ah Dhuusamareeb 2 ha lagu heshiiyo Somaliland ha laga qayb geliyo ama haday xataa ka qayb galaynin dad matalaya laga qayb geliyo oo aan isleeyahay gudoomiyaha aqalka sare inuu matalo oo noqdo ninka maaragtay matalaya loona qaado Somaliland wax u qaadmo wixii hore ka bedelan dowladnimada Soomaaliya si xalaal loo soo dhiso oo lagu wada midaysan yahay oo la isla ogol yahay leeskana daayo sheekadan ah qof iyo cod la qabanaa qof Somaliland maqan say qof iyo cod u qabanay Somaliland maqan dastuurkiya waxaad ku qortay warqadihii doorashooyinka waxa ku qoran 4.5 seebay ku suurtagelayda warqado 4.5 ku qoran yahay doorasho qof iyo cod alla qabana inaad ku qaylido macquul ma runta hal loo soo dhaco hal isu yimaado hal meel waxa lagu wada qorto hal isla maaragta hal isku afgarto dawladda Soomaaliya andho xukuumadda iyo baarlamaanka iyo madaxtooyada iyo ayagoo dhan isku jira ka shaqeey ummadda Soomaaliyeed waa hadda aad talada hayseen 3 sano ee barka ku dhawaad ka ahayd waxa way wax la taaban karo ma aad qabanina hadda isku daya bal ummadda Soomaaliyeed isu soo jiidin oo tanasul asmaysiin anigu waan ogahay madaxweyne Farmaajo loogama baran tanasul loogama baran horumarin in ummadda Soomaaliyeed oo wax u qabto loogama baran laakiin haddeer bal shirka waa jaaniski ugu dambeeyay ama waqtiga ugu dambeeyo bal la fiiri lahay way haduu shirka isku dayo inuu fashiliyo ama uu isku dayo inuu dhinac maro waxa way gacan bir ayaa la isay qabanaya ummadda Soomaaliyeed gacan bir isay qabanaysa aadan in salaamaya magacaygu waa Garaad Cabdullaahi waxaan doonayaa anigu in Soomaaliya midowdo nabad ah heshiis ah ayaan doonayaa ma doonayo xil uu ordi maayo ujeedkayguna maaha aad ayaan in salaamaya mar labaad iyo mar saddexaad